Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa mar kale iyo sheeko aad u xiiso badan. Haddaba daawadayaal, qisada sheekadani waxay ku bilaabmaysaa sida tan. Oday iyo islaan isqaba ayaa waxa ay ku fikireen sidii ay lacag u heli lahaayeen. Wax adduunana waxay lahaayeen dameer. Haddaba dameerkaas si ay lacag fara badan ugu helaan ayaa waxay sameeyeen waxa ay ku gureen shilimaan lacag ah. Kadib dameerkii marka uu ciyaba waxaa ka soo dhaca hal shilin. Dadkii ku noolaa magaaladaasi ayaa aad ula yaabay kuna soo ururay dameerkan cajiibka ah ee lacagta dhalaya. Halkii ayaana sicirkii dameerku uu aad sare ugu kacay. Tartan iyo loolan adagna ay u gashay bulshadii halkaa ku noolayd sidii ay u iibsan lahaayeen. Ugu dambayn waxaa ku guulaystay qofkii ugu lacagta badnaa ee gaadhay qiimihii ugu sarreeyay ee uu ku doonayay inuu ku iibsado dameerkan. Shakhsigan oo hamigiisu ahaa inuu dameerkani mar walba u dhalo lacag, balse wuxuusan ogeyn inay tahay khiyaamo ay soo maleegeen dadka dameerka iska leh. In muddo ah markii uu haystay ayaa waxaa ka dhammaaday lacagtii uu dhalayay dameerku, taasoo ahayd mid markii horeba lagu guray. Cadho ayuu iskala garan waayay, kadibna waxa uu raadsaday ninkii ka iibiyey dameerka si uu ugu celiyo lacagtiisii. Kadib waxay yimaadeen gurigii ninka dameerka leh, balse waqti xaadirkan guriga waa uu ka maqan yahay mulkiilihii dameerka lahaa. Balse waxay ugu yimaadeen ooridii uu qabay. Waa ay soo dhoweysay, waxaanay ku tiri, halkan fadhiista, odaygii waa uu maqan yahay. Waxaan u dirayaa eygan. Eygaasoo ahaa mid ku xidhnaa duleedka reerka. Eygii ayaa ay ka furtay xadhiggii waanay sii daysay. In cabbaar ah markii uu maqnaa ayaa waxaa soo muuqday odaygii iyo laba ey oo isku eg oo la socda. Arrintii waxay noqotay mid ka fajicisa dadkii, waxaanay iloobeen ujeeddadii ay u socdeen oo ahayd in loo celiyo lacagta dameerka. Waxaanay ku mashquuleen eygan rabaayadda ah ee dadka loo dirayo soo helaya soona kaxaynaya. Isla markiiba waxaa bilaabmay loolan lagu doonayo in lagaga iibsado eygan. Mar labaad sicirkii eyga ayaa sare u kacay, loolan adagna loo galay. Ugu dambayn waxaa ku guulaystay mid ka mid ah akhyaartii, kadibna sidii ayuu ku kaxaystay una geystay gurigiisii. Haddaba daawadayaal, ninkan eyga iibsaday waxaa ka maqnaa wiil uu dhalay, waana sababta ku kaliftay inuu iibsado eygan. Xadhigga ayuu ka furay eygii si uu ugu raadiyo wiilkiisii, balse arrin lama filaan ah ayaa dhacday. Eygiina dibba uguma soo noqon ninkii. Sidii si la mid ah ayay haddana uu ninkii ugu noqday gurigii odayga si uu ula socodsiiyo arrintan dhacday, isaga oo dareensan in la khiyaameeyey. Markii ay soo gaadheen gurigii waxay ugu yimaadeen sidii hore si la mid ah islaantii. Islaantu way fahantay ujeeddada ay u socdaan nimankani inay yihiin ashkato. May soo dhoweyn ee waxay ugu jawaabtay markii ay weydiiyeen odaygii reerka halkee ayuu ku maqan yahay. Waxa ay ku tiri, ma garanayo meel uu ku maqan yahay, bannaankaa ku suga. Cabbaar markii ay fadhiyeen ayaa waxaa soo baxay odaygii reerka. Markii uu arkay in martii u fadhido ayaa kiiska uu iska waalay, waxaanu canaan dusha kaga tuuray islaantii isaga oo leh, naa inkaari kugu dhacday, martida maxaad u soo dhoweyn weyday? Iyaduna sidii si la mid ah ayay kiiska iskaga waashay. Waana qorshe labadoodu ay isla fahansan yihiin. Halkii ayaaba uu odaygii islaantii ugu gacan qaaday, kadibna islaantii meel dhaqaaqdaba waa laga waayay. Nimankii ashkatada ahaa talo ayaa ku ciirtay, waayo waxay dareensanaayeen in falkan dhacay iyaga dartood uu ku dhacay. Odaygiina meel ayuu iska fadhiistay. Muddo markii uu fadhiyey, nimankii odayaasha ahaana ay u fahmeen islaantu inay meyd tahay, ayaa odaygii waxa uu soo qaatay ul yar oo dhexda ka daboosha. Kadibna islaantii ayuu qoorta kaga afuufay. Islaantiina waabay kacday. Waxaaba la iloobay ujeeddadii loo socday. Waxaana la isweydiiyey, ushan soo noolaynaysa qofka dhintay, ushiibaaba sicirkeedu samada galay. Haddaba daawadayaal, dulucda sheekadan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa in ummadaha ama bulshooyinka caqliyadooda ay ku ciyaaraan dadka hoggaanka u ah amase hormuudka u ah una haya talada, sida ka dhacda geyigeenna Soomaalida. Waayo inta hebel la doorto oo uu dembi sameeyo ama xoolaha ummadda uu ku takrifalo ayaa haddana waxaa lagu murmaa oo muran la geliyaa hebelka cusub ee isaga lagu beddelay si aan la isku weydiinin dhacdadii hore. Waxaana lagu mashquulaa hadba arrinka cusub ee markaa taagan. Sheekadan oo la magac baxday dameerkii
lacagtii dhalayay. Halkaas ayaynu kusoo afmeeraynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.